Asalaamu calaykum soo dhawaada. Shirkan wuxuu ku saabsan yahay social engineering mise inaad sameysid page login ah oo userka markuu soo geliyo mise victimka gmailkiisa iyo passwordkiisa aa heli karto. Toolka isticmaaleyno kaliya ku imaada waxaa la set toolkit. Waan run gareyneynaa kadibna isku dayeynaa kaliya gal kadibna waxaa dhahdaa set toolkit wuxuu ku leeyahay u run garee as a root, so waxaa leedahay sudo set toolkit kadib wuxuu ku leeyahay passwordkaaga markaa gelisid toolka aan u isticmaaleyno wax saas iyo saas ah oo illegal ah ayaa leedahay. kadibna waxaa dooranaysaa one social engineering ah, waxaa dooranaysaa two waxaa u baahan tahay website attacks u baahan tahay, waxaa dooranaysaa midka saddexaad oo harvesting credential in password aa qabanaysid. kadibna wuxuu ku weydiinayaa IP addresska oo websitekaas iyo loginkaas lagu sameynayo. marka IPA haddaad dhahdid waxaa arkaysaa in aniga hadda IPA markaa dhaho ima soo buuxdo IP addresskeyga sababtoo networkkeyga wuu dansan yahay. marka networkkeyga ayaa soo daarayaa inuu dhahayo sudo systemctl restart network manager. passwordkeyga ayaan gelinayaa ilaa hadda sooma qaban, mar kale lagu celinayaa sudo systemctl restart network manager. hadduu ii soo qabtay hadda ayaa IPA dhahayaa. IPA markaa dhaho ethernetkeyga waa ujeedaa inuu 172 waa koobiyeynayaa kadibna intaa ku paste gareynaa. waa loginka xagga lagu sameynaa IP addresskaas markaan geliyo waxaan dooranayaa saddexdan ayuu soo qabanayaa. number 2 oo google aan dooranayaa waa lii sameeyay. hadda IP addresskeyga hadda browserka tago oo aan geliyo port 80 waxaa ii yaala login pageka. login pagekaas waxaa arki karo qof walba oo networkan 172.20.10.4 ku jiro subnetkaas ku jiro. marka haddaan hadda browserka tagno aan gelino IP addresskii waxaa noo soo qabanaya login pagekii. login pageka hadda markaan gelino gmail iyo password kadibna send dhahno wuxuu noo gudbinayaa google redirection oo sameynaya. markaas soo laabano aan kasoo baxno oo arkaynaa in passwordkeeni meeshaan gmailkeen lagu soo bandhigay. si marka networkan hadda haddaan galno maxaa la dhahaye kali kale noo furan oo IP haddaan dhahno isla networkkaasuu wataa 172.20.10.5 haddaa copy dhaho oo inta ku paste gareeyo oo 4 ka dhigo IP addresska kaliya oo stager waa arkayaa sababtoo ah isla network ayuu ku jiraa. haddii passwordkii gmailka aan geliyene xagga ayaa lagu soo bandhigayaa. sidee marka aan ugu diri karnaa qof hadda aan nala joogin oo kale oo networkan aanan ku jirin? waxaan isticmaaleynaa marka tool la yiraahdo nrock oo noo sameynayo public IP address mise domain kaasoo qof walba aan u diri karno. marka public IP addresskaas oo kuu sameynayo oo domainka ah oo domain kuu yeelayo qof walba ayaa u diri kartaa. hadda hadday browserka imaado oo dhahdo nrock.com inta ayaa ka akhri kartaa nrock iyo wuxuu qabto iyo waxyaalaha. aniga waxaa u baahanahay in kaligeena aan kusoo download gareysano. marka waxaan leenahay nrock download kadibna stepeska lagu soo download gareynayo inta ayuu kugu siinayaa. waxaan qaadanayaa midka koowaad. haddii linux aa ku jirtid qaybtan waaye, qayb kale ubuntu qaabka u rabtid waa arkaysaa. waa soo koobi gareyneynaa kadibna waxaan ku paste gareyneynaa kaliga uu u run gareysan yahay kadibna passwordkaaga ayaa gelinaysaa. kaliga ku run gareysan yahay toolkaaga website kuu soo bandhigo hadduu nala soo download gareyso waqti badan oo qaadanaya laakiin aniga adiga kuu qaadanayaa. kadibna waxaa u baahan yahay tokenkan waxaa ku heli kartaa keliya markaa sign up dhahdo nrock waa gmail iyo aad geliso password oo sax ah kadib waxay ku siinayaan token ay ku siinayaan. hadda aniga waxaan clear dhahaynaa kan kadibna waa ku paste gareyneynaa
qaybtaas tokenka ayaa tirtireynaa. Tokenka waa inaa horta aa login dhahdaa. Sana baa dhahaynaa Gmail iyo password ayaa gelinaysaa, kadib waa isku soo laabaneynaa. meeshaan uu ku weydiinayaa Gmail, wuxuu keenayaa meeshaan oo welcome ta ah. Hoos ayaa usoo degaysaa, isla stepski waaye, laakiin meeshaan token ayaa ku yaal. Tokenkan ayaad copy gareysanaysaa sida uu yahay. Copy ayaa dhahaysaa. intaas kaliya soo copy gareyso, kadibna paste ku dheh, kadib run garee. Tokenka waa haysataa oo Kaliix ku joogaa. Hadda waxaa run gareyneynaa marka si noola siiyo port 80 waxaan leenahay nasi waxaan isticmaalnaa nrock port 80 http aan isticmaalnaa. http waxaa loo isticmaalaa in website keena ka run gareysan toolka noo run gareeya login-ka ah in uu na siiyo public domain aan qof kale oo network kale u jooga u diri karno. Hadda wuu na siiyey, waa copy-yeyneynaa, kadib browser-ka ayaan tagaynaa, meeshaan ayaan ku paste gareyneynaa. si qaldan ayaan u paste garey usoo copy-yey malaynayaa. Ka laabo. Markaa gadaal u laabato waxaa liiga baahnaa kaliya http ilaa app looma baahna inta kale. Marka halahan soo copy-yey. kadib geli. waxaa arkaysaa wuxuu ku siinayaa qoraal ah meeshaan qofka kuu soo diray iska hubi iyo waxyaalo la mid ah. Sababtoo ah nrock mar badanaa waxaa loo isticmaalay waxyaalo qaldan oo illegal ah. Marka waxay tusisaa qoraalkan tusisaa. Laakiin haddaa u baahan tahay inaa login page iyo aad sameysid sidoo kale oo public IP address iyo waa inaa adiga sameysataa. kadibna maxaa la dhahayaa public IP address aa gadataa VPS oo kale wuxuu ku siinayaa public IP address. Marka Gmail-ki iyo password inta gelino isla sidii oo kale ayaan u arkaynaa. Qoftaa lagu dhahaa information inaad diraysid yes aa leedahay, kadibna waa arkaysaa. Okay, markaad waxaa aadaynaa hostigeena oo windowgeena ah oo banaanka ah oo network aanan ku jirin si aan u fiirino in qof kale loo diri karo. Hadda computerkan hadii banaanka looga soo baxay virtual box-iga kuma jiro. Kadib inta ayaan ku paste gareyneynaa. inta markaa ku paste gareyso qoraalka ayuu kusoo dirayaa iska hubi qofka kuu soo diray iyo waxa la mid ah. kadib waa hubaa ay dhahaynaa. kadibna intaan gelineynaa Gmail iyo password. waxaan fiirineynaa hadda waxaa hore ka dareemeysaa in qof walba u diri karto maadaama windowgeena uu IP address kala wato. qof walbo waa u diri kartaa. Okay, markaa send dhahay. Okay, muuse soo dirin maadaama wuxuu siiyey qoraal ma hubtaa oo dhahay waa hubaa ma dhihin. mar kale ayaan ku celinayaa sign in, kadibna send anyway mar walba dir macnaha secure maan oo leeyahay maadaama Bitdefender oo igu jiro oo antivirus ah. antiviruskaas ayaa soo qabanayo. kadibna markaa gelisid waxaa arkaysaa in noola soo bandhigay. aad mahadsantihiin.